ra'iisul wasaare xasan cali khayre ayaa falsafadii uu la yimid galmudug waxa ay sabab u noqotay in uu burburo maamulka ahlu sunna wal jamaa ee muddo ka badan 11 sano ka arriminayay deegaano badan oo ka tirsan gobolada galgaduud iyo hiiraan waxaana ahlu sunna marka la soo qaado dawlad goboleedka galmudug ay ka ahayd awood aan la iska indhatiri karin oo ay qasab tahay in lala gorgortamo sida aad la socoteen ahlu sunna iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya heshiis ayaa ku dhaxmaray dhuusamareeb heshiiskaas oo siyaasiyiinta qaar ay u fasireen fiisi dawladdu ay ku soo gali lahayd deegaanada ahlu sunna ay maamusho oo markii hore aan loo ogoleen in gacan kale oo aan ciidanka ahlu sunna ahayn ay yimaadaan dawladda ahlu sunna waxa ay ku heshiiyeen in markaasi tiro laga siiyo baarlamaanka galmudug ee labaad ee la dhisi doono guddiga doorashooyinkana lagu daro laakiin arintaasi ma isa dhicin guddigii farsamada ee dawladda ay soo magacawday xubno ahlu sunna kuma darsan oo laga matalagelin sida ay ugu sheegeen sidoo kale waxa la isku haystaa in ahlu sunna ay heli doonto 35 xildhibaan oo loo ballan qaaday intaas iyadoo khilaaf ka taagan yahay ayaa waxa hadlay dhawaan wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka dawladda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo dhuusamareeb boqolaal dadweynaha kula hadlay wasiir Sabriye waxa uu hadalkiisa u muuqday mid dhilo colaadeed xambaarsan waxa haatan soconayana markaasi salka ku haya afar warqadood ayuu soo bandhigay laakiin hal warqad ayaa ugu muhiimsanayd oo ay ku qornay tirada xildhibaanada ahlu sunna la siinayo waxa uu xaqiijiyay warqadaas inay sax tahay isaguna uu saxeexay laakiin waxa uu sheegay in fulinteeda la isku haysto ahlu sunnana laga rabo in odayaasha dhaqanka iyo dawladda oo isla socda ay ergo u noqdaan si xildhibaanada ay rabaan loo siiyo arinkaas ayuu sheegay wasiirku wixii inta ka dambeeyay waxa bilowday colaad iyo in deegaanada qaar ahlu sunna laga qabsado waxa ugu horeeyay deegaan la yiraahdo Elleere oo koonfur ka xiga magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka galmudug kaas oo qiyaastii ilaa iyo dhowr iyo 20 kilomitir u jira magaalada dhuusamareeb halkaas waxa haystay ciidanka ahlu sunna durbadiiba waxa la wareegay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya waxa ku xigta shalay oo ay matabaan rasaas iyo shaqaaqa ka dhacday hal qof oo ku dhintay labana ay ku dhaawacantay ciidanka dawladuna ay la wareegeen degmada matabaan oo gobolka Hiiraan ka tirsan ahlu sunnana ay haysatay waxa ku xigta staaka oo la soo warinayo in ciidanka dawladdu ay la wareegeen Gurceel oo ay si buuxda u la wareegeen waxa sidoo kale jirta in dhaqaaqii ciidan ay haatan ka socdaan dhuusamareeb oo lagu soo waramayo in fariisimo ay ahlu sunna ku sugnaayeen ay ciidanka dawladdu haatan la wareegeen ahlu sunna laga yaabo inay ka baxdo magaalada dhuusamareeb iyadoo la sheegayo in culimadii ahlu sunna ay qorsheynayaan in baadiyaha magaalada ay aadaan waxa sidoo kale jira in magaalada dhuusamareeb ay hanteed bay go'doon galiyeen ciidanka dawladda marka la fiiriyo sida istaraatiijiga ay deegaano badan ku hareersan ay u qabsadeen waxaana arintaas xoogeeda wada ciidanka xooga dalka oo qojo dagaari uu hogaaminayo ah qaybta 12 ninka hogaaminaya marka ahlu sunna aad ay haatan ugu muuqataa inay burburtay inkastoo ahlu sunna ay madaxdeedu wali joogan oo madaxa xukuumadda galmudug uu kamid yahay Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan kaas oo dhuusamareeb ku sugan wararku waxay sheegayaan in ahlu sunna awoodoodii si daciiftay laakiin dadka qaar waxay leeyihiin ahlu sunna awoodoodii ma daciifin oo banaanka ay tagayaan ciidamadooda ay urursan doonaan waxana ay u diyaar garoobayaan dagaal inay qaadaan wararka qaar waxay sheegayaan in ciidamada ahlu sunna ay ku sugnaa matabaan Gurceel Elleere dhuusamareeb la kala jabiyay oo qaarkood ay markaa ka soo horjeesteen culimada diinka ahlu sunna wal jamaa inkastoo wararkaas aanu si madax banaan u xaqiijin karin